الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، muuqaalkani waxaan ku qaadanaynaa insha Allah ta'ala sidee ayaa loo xaliyaa, qaabkee loo xaliyaa mashaakilka ka dhaxeeya labada isqabta, al-mashaakil az-zawjiyya. maxaa yeelay way nagu badatay ayaamahan dambe. waxaad arkaysaa aroos cusub baa dhacaya, arooskii maalmo kadib haddana waxaad arkaysaa waxa lagu leeyahay gabadhii wiilkii waa kala tageen, mashaakilkii wuu batay. taasina waxaa keeni karta in qofka bani aadanka uusan ogeyn waajibka asaga saaran, waajibka asaga lagu leeyahay iyo waajibka asaga uu leeyahay iyo waajibka ka wada dhaxeeya asaga iyo xaaskiisaba. maxaa yeelay mashaakilkaasi way badanayaan marka haddii inta aan la garan waayo. waxaa jiro oo muhiim ah horta in la ogaado xuquuq, waxaa jiro oo labada isqabta ka dhaxaysa oo ah يعني مشترك واي وذاق واي labadooda way wadaagaan. kana ninkana xaaskiisu ku leeyahay, gabadhan odageeda ay ku leedahay. maxaa waa tan koowaad al-mu'aasharatu wal-mulaatafatu bil-ma'ruuf, in la dhaqmo qofka lagula dhaqmo dabeecad wanaagsan. adiga saad u jeceshahay in wanaag lagula dhaqmo ayay gabadhuna jeceshahay in wanaag lagula dhaqmo. qof walba marka oo waajib waxa ku ah xaaskiisa inuu kula dhaqmo dabeecad wanaagsan. nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri midkiina idinku fiican waa midka reerkiisa iyo xaaskiisa u fiican. anigana xaaskeyga u fiicana uu yiri sallallahu alayhi wasallam. gabadha marka in loo dhimriyo oo hadalka loo jalciyo, dabeecadda mid ugu wanaagsan loo raadiyo. wiilka kaligiisa lagama rabee, ayadana waxaa laga rabaa sidaas oo kale inay odageeda raali geliso oo dabeecadda mid ugu wanaagsan ay kula dhaqanto. waa xuquuqda ka wada dhaxayso. tan labaad maxay tahay al-istimtaac. labadan qofood waxay xaq isku leeyihiin inay isku raaxaystaan. ilaahay subxaanahu wa ta'ala intuu baneeyay ilaa meesha ilaahay uu baneeyay, wiilkana xaq buu u leeyahay, ninkana xaq uu u leeyahay, gabadhana xaq bay u leedahay inay ninkan inuu raaxo helo, ayadan in raaxo hesho. waa wax mushtarak ah. micnaheeda haddii la waayo meesha waxaa ka imaan kara mashaakil. tan koowaad maxay ahayd dabeecad wanaagsan. dabeecadaha wanaagsan haddii meesha laga waayo waxaa imaan kara mashaakil fara badan, in laisku xanaaqo. istimtaac haddii la waayo oo gogosha oo lagu kala tago, tusaale ahaan ninka uu isdabaaliyo oo habeenkii markuu yimaadoba waa daalanahay iyo uu bilaabo, oo gabadhan habeenkii ay sugayso oo keed kale waqti uu dhamaado, wareer waa eedana. yaa kale asagana kadalik inuu caawo soo sharxo isdhow caawo xalwado iyo buskudku intuu soo qaado oo isdhow caawo afka horaa tahay, markuu yimaadana uu dhahdo walaahi iska daalanahay iga khaleeno waa iska seexanaa maanta camal. haddii marka hal haween iyo laba haween wixii soo noqnoqdaan, ninkii wuxuu ka rabay uu ka waayo, ninkan inuu xanaaqo xaq u leeyahay, sababtoo ah xuquuq oo labadeedin ka dhaxaysay ayuu waayay. sidoo kale xuquuqda ka dhaxaysa waxaa kamid ah at-tawaaruth, inay isdhaxlaan. ninka hadduu dhinto uu maal ka tagay, gabadh inay dhaxasho, gabadh haddii dhimato oo ninkeeda uu joogo uu dhaxli karo dhaxalkaasi oo ilaahay quraankiisa uu ku sheegay. oo ilaahay uu leeyahay walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad. haddii xaasaskiina ay dhintaan oo dumarka qabtiin oo ilmana aysan ka tegin, maalka nus ayaad ku leedihiin. ayagana rubuc ayay ku leeyihiin, rubuc ayay leeyihiin haddii oo ninka uusan awlaad ka tegin, way isdhexlaayaan. sidoo kale xuquuqda mushtaraga ah oo ka wada dhaxeeya ninka iyo naagta inay wada ilaaliyaan laga rabo waxaa kamid ah xifdu sirri, sirta in la ilaaliyo. ninkana xaaskiisa sirteeda inuu ilaaliyo, gabadha ninkeeda sirtiisa inuu ilaaliyo, oo xitaa aysan u sheegin qofka ugu dhow oo qaraabada ah sirtooda ay qariyaan. waxyaabaha ugu xun waxaa kamid ah qofka ninka ragga ah habeenkii ama maalintii inuu xaaskiisa u tago kadibna dadku ugu sheekeeyo. nacas waay. nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ninkaasi waa nin fiican ma ah.
qofka sheegaya habeenkii sida xaaskiisa uu ku sameeyay oo asraartooda faafinayo inta marka waa xuquuq mushtarak ah oo ka wada dhaxeeya ninkii naagtii wada ilaaliyaan haddii inta la ilaaliyo cilaaqadaasi oo lamaananimada ah way adkaanaysaa xoog ay yeelanaysaa sababtoo ah ninkana wuxuu ilaaliyay xuquuqaadkii laga rabay gabadhana waxay ilaalisay xuquuqaadkii laga rabay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay marka wacaashiruuhunna bilmacruuf dumarka waxaad kula dhaqantaan dabeecad wanaagsan hadaa kula dhaqantaan marka meesha waxaa imaanaya wanaag inuu bato khayrka inuu bato oo aan iska hor imaanin qof walbana wuxuu jecel yahay wanaag in lagu dhaqmo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa khilaafaadkan oo dhexyaalo qoysaska Soomaaliyeed inuu ilaahay dejiyo uu hagaajiyo ayna waxaan kula talin lahaa inay qaataan wadadii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu jideeyay oo uu yiri jidkaas hala qaato maxaa yeelay dumarka waxa laga abuuray feera qalloocnaantana waxay ugu badan tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam qaybta ugu koreyso dumarkana waxa laga abuuray qaybta ugu koreysa laga abuuray hadaba wanaag wala dhaqmo leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ma toosin kartiin uu leeyahay hadaad feertaas inaad toosisin aad isku daydaana waad jibinaysiin jibintana waa furin waa aragnaa furinka aad u batay xiliyadan dambe waxaad arkaysaa gabar oo 20 sano aanan gaarin oo 18 jir 19 jir ah lagu leeyahay waa la soo furay gurigeeda joogtaa waxaad arkaysaa mar dhawaa qarash la galay lacag fara badan baxday hoteelo baa lagu dhigay aroosyadii taada kale waxyaabaha guurka burburin kara waxa kamid ah in marka hore guurka markii la galaayaba oo micnaha ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuusan ogoleen in guurkaas lagu bilaabo haddii lagu bilaabo guurkaas inuu sii jiro waa adag tahay hadduu jirana wuxuu ku jirayaa si qalqiil iyo buuq badan waxaa ka mid ah in fakta horeba ilaahay lagu caasiyo maxaa ka mid ah marka caasintaasi in hoteelo lagu dhigo aroosyadii xiliyadan dambe waxaad u malaysaa be hotel arooskan lagu dhiginba arooskaas ma ansaxaya in la yiri aroos hotel lagu dhigayaa gabdhihii way qaqaawan yihiin rag baa jooga waa la isla ciyaarayaa camera la iska duubayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogola rag iyo dumar in hal meel iskugu yimaadaan oo waliba dumarku way qaaban yihiin dharka ay wataan wallahi waa ka yaqyaqsiyo aad u dhimanaysaa okay guurka oo noocaas lagu bilaabay heeso ilaahay heesaha wuu ka caroodaa heesaha waa mazaamiru shaytaanka waxyaabaha uu ku ciyaaro waay hadaba guur oo hees iyo qaawnaan iyo maalaayacni lagu bilaabay ilaahay subxaanahu wa tacaala way adag tahay guurkaas inuu adkeeyo inta badan guurarka noocaas waxay ku dhamaadaan fashil ama haddii fashil uusan ku dhamaaninna qoysaskaas waxaa laga yaabaa in mashaakil le inuu haysto maxaa yeelay sheega bilaawigiisa waxaaba lagu bilaabay bilaaw xunna ilaahay ma barakeeyo haddaba aan ku wada dadaalno in xiriirkaasi oo qoyska ah oo lamaanaha ah inaan adkeeno oo ilaahayna aan ku raali gelino waxyaabaha ilaahay uu jecel yahay inaan ku sameeyno qof walbana qof kale xaqiisa inuu ilaaliyo waxaan hubaa aniga hadii xuquuqaadka la kala ilaaliyo oo qofkan xaqiisa uu ka soo baxo ayadana xaqeeda ay ka soo baxdo in la iska hor imaaneenin iska hor imaatinka waxaa keenaya in labada qofood midna xaqiisa uu ka dhaco haddii mid ka mid ah labada qofood xaqooda uu ka soo bixi waayo meeshii buuq iyo qararac ma ka dhamaanayo marka ilaahay waxaan ka baryaynaa buuq inuu naga yareeyo oona jidka toosan nagu hanuuniyo wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.